ahlu jannahu buu rasuulku yidhi markay jannada galaan 4 shay baa loo bishaaraynayaa waxaa la odhanayaa ahluljannow maanta laga bilaaba waxaad leedihiin nolol aan dhimasho dambe lahayn shabaabnimo aan gabow dambe lahayn nicmad aan dhibaato dambe lahayn caafimaad aan xanuun dambe lahayn baa la odhanayaa ayna dunya xadiis buu nebigu ka sheekeeyey ibnu mascuud uu wariyey yaa adnaa ahla aljannati manzila jannada dadka galaya ka ugu darajo yar buu nebigu maalin ka sheekeeyey wuxuu yidhi waa nin ka soo baxaya jannada buu nebigu yidhi jannadu ka soo baxaya gurguurad buu kaga soo baxayaa albaabkii jannadu ilaahay buu hor imanayaa ilaahay baa odhanayaa cabdi addoonkaygiiow orodoo jannada gal waa taase albaabkii jannadu imanaya indhihiisii baa looga dhigayaa jannadii inay buuxsantay markaasuu noqonayaa yaa rabbi jannadaad gal igu tiri way buuxdaa meelaan ka dega ma haysto markaasuu ilaahay odhanayaa ma buuxday orodoo noqo gal haddana uu imanayaa mar labaad mar saddexaad markii afraad baa ilaahay odhanayaa orodoo jannada gal oo teg oo gal jannada adduunyadii iyo 10 baad leedahay keligaas adduunyadii eebisa 10 waa saaxada arlada weeyaan amaa waxa jannada yaalla adduunyada ma yaalliin adduunyada maxaa yaalla markaasuu odhanayaa ataskharu bii ilaahu ma igu dheeldheelaysaa aw tadxaku bii mise waad igu qoslaysaa adigaaba boqorkiiye maskaxdiisay ka dhaadhacayn arrintaas adduunyadii iyo 10 baa lagu siiye soco imaam qurtubi kitaabu tadkira wuxuu ku sheegay ninkaasi madaxweyne marka dawlad loo magacaabo koormeer buu sameeyaa dalkoo dhan buu soo maraa gobollada tuulooyinka distrigyadaas meel kastuu soo maraa wasaaradaha ninkaasi wuxuu yidhi halkanuu ka bilaabayaa jannadiisii halkanuu ka bilaabayaa ilaa dhinaca kale uu ku soo wareegayo meesha uu mar marana mar labaad isha ku qaban maaye safarkaa wuxuu ka qaadanayaa 1,000 sannadood imise sano 1,000 sannadood fayaatii wuxuu imanayaa albaabkii jannadu isa soo taagayaa xawralcayntiisii baa ka hor imanaysa tanduru ilayhi wa yanduru ilayha buuhi ibnu cabbaas way eegi eegmadoo keliya ayaa qaadanaysa buuhi 40 sannadood imse sanaad dalka joogtaan annadara fad tucaaniquhu wa yucaaniquhaa wuu ku boodayaa way ku soo boodaysaa way isku dhegayaan waalmucaanaqatu qadra 40 sana buuhi cabdullahi ibnu cabbaas mucaanaqadoo keliya waxay saysanayaan 40 sannadood oo kale wuu soconayaa maqsinkii cuntadu ay taallay buu fadhiisanayaa 700 sano uu cuntada cunayaa bas muddada u yaruu cuntada cuno waa 700 sano ayna addunya maxay tahay adduunyadu howralacaynta waan ka sheekayn lahayna kolley haweenkuna waa nala fadhiyaan bayaanka waa nala dhegaysanaya muxaadarada xaqoogana waan sheegaynaa cajiib nicmaddaasaa ilaahay dadka mu'miniinta u diyaariyey yatuufu calayhi 10,000 khaadim buu nebigu yidhi ninka jannada galaya dadka jannada gale ugu jaga yara ugu faqiirsan ee ugu faqiir lama dhihi karee ugu jaga yar waxaa dushiisa dawaafaya buu nebigu yidhi 10,000 oo khaadim baa dul dawaafaya khaadimka kale arki maayo khaadimkan sharaabka iyo cuntada uu sido ku kale ma sido guryaha jannada buu nebigu yidhi sida guryahan adduunyada ma ahine sidaasay carshiga uga laalaadaan buu rasuulku yidhi asxaabtu way yaabeen yaa rasuulallah guryaha sideen u galaynaa wuxuu yidhi sida shimbirahaad u duulaysaan aad u galaysaan buu yidhi cuntaada cunaysaan biyahaad cabbaysaan sindhe iyo kaadimidna noqoni maayaan cuntadu waxay isku beddelaysaa daacadaasoo ka udgoon miskiga sharaabku wuxuu isku beddelayaa dhididkaasoo isaguna miskiga ka udgoon ma dhimanayaan ma gaboobayaan ma daalayaan ma gaajoonayaan ma harraadayaan ma bukoonayaan calolxuma ma jirto qabyaalad ma jirto qabyaalad halkaa may socon ma jirayso wanasacnaa maa fii suduurihim min khillin albaabka jannada markay joogaan 2 shayba waa laga dahirayaa hadday jidhkoogiina jannada intay gelin baa la beddelayaa laabtooda wixii ku jiray khilli iyo xasad iyo dabeecaddii xunayd iyo buqdigii iyo wixiina halkaasaa lagaga reebayaa laa yasmacuuna fiiha lagwan ilaa salaama wax kala maqli maayaan salaama bay maqlayaan waalmalaa'ikatu yadkhuluuna calayhim
min kulli baab salaamun calaykum bima sabartum nazulan min ghafuur salaamun qawlan min rabbi raxiim dhexdoodana waa salaam malaa'igtuna way salaami xagga salaamkana salaam baa ka imanaysa salaantee ka imanaysa salaamtaa waxay ka timidaa la odhanayaa min alxayi aladii laa yamuut ila alcabdi aladii laa yamuut diinta iyo iimaanka islaamnimadu waxay bini aadanka siinaysaa sifo sifaadka ilaahay ka mid a alabad sifat alabad buu yeelanaya qofka bini aadamku markuu jannada galo min alxayi aladii laa yamuut waxaa la odhanayaa salaantani waxay ka timiday ilaahay noolahay aan dhimanayn waxay u imatay addoonka ilaahay isaguna aan dhimanayn haddeed hole nicmada ilaahay noo diyaariyey nicmaddaa waxaan ku helaynin waan haysannaa iimaankaan ku helaynaa islaamnimadaan ku helaynaa haweenkuna ilaahay waa u nicmeeyey oo nebigu ayaa yidhi calayhi salaatu wasalaam ida almar'atu ayima imra'atin maatat wa zawjuha canha raadin dakhalat iljanna raggu baa la yidhi waxyaabaha jannada ragga loogu ballan qaaday waaba la adkeeye laakiin dumarku waxyaabaha jannada ku galeen waaba wax iska dhib yar naagta gabadha dhimata buu nebigu yidhi haweenayda dhimata iyaduu ninkaygu raadi ka yahay jannaday gashay buu rasuulku yidhi rasuulku xadiis waxau ku yidhi dadka salaadda tukada albaab bay jannada ku leeyihiin laydhaa baabu salaa dadka soonka laazima albaab bay ku leeyihiin baabu rayaan laydhaa dadka sadaqadda bixiya albaab bay ku leeyihiin baabu sadaqa laydhaa dadka jihaadka u dadaala albaab bay ku leeyihiin baabuljihaad laydhaa abuubakar baa yidhi biabi anta wa ummi yaa rasuula allah hooyaday aabbayba waan kugu fidayn oon kugu furanaye siddeedda albaabay jannadu leedahay nin ka galayoo looga yeedhaya ma jiraa buu yidhi markaasuu nebigu yidhi nacam wa arjuu an takuuna minhum haa way jir rag siddeedda albaabee jannadaba looga yeedhayoo la odhanayo kan ka soo gal kan ka soo gal way jiraan raggaa inaad ka mid tahay baan rajayn buu rasuulku yidhi abuubakarow abuubakar keliya ka geli maayo siddeedda albaabee waxaa la galaysa gabadha saalixadda ida almar'atu sallad khamsahaa wa saamat shahrahaa wa ataacat zawjahaa wa xafidat farjahaa hadday haweenaydu buu nebigu yidhi shanta wakhtina tukato bisha rabadaanna ay soonto farjigaygana xumaanta ka dhowrsato ninkaygana ay adeecdo siddeedda albaabee jannadu ay leedahay ayay kay doonta ka gashaa buu rasuulku yidhi siddeedda albaabee jannadu leedahay ayay kay doonta ka gashaa buu rasuulku yidhi hadday gabadha laga hela afartaa camal bisha rabadaan oy soonto shanta wakhti oo ilaaliso xumaantoo ka dhowrsoonaato iyo zawjkayga oy adeecdo afartaa gabadha laga hela buu rasuulku yidhi siddeedda albaabee jannadu ay leedahay ayay abuubakar daba joogsanee la geli doontaa qiyaamaha waa la weyddiiyey nebiga gabadhu way weyddiiyey saxaabiyaadku haweenka mu'minaadka iyo xuralcaynta midkee fadli badan baa lagu yidhi caa'ishaa weyddiisay wuxuu nebigu yidhi gabadha mu'minadda ayaa xuralcaynta ka fadli badan buu yidhi waxay tidhi maxaan kaga fadli badannay waaba xuralcaynoo ilaahay baa sameeyo nuur baa laga sameeye wuxuu nebigu yidhi bisalaatihinna wa siyaamihinna wa taacatu aswaajihinna waxay kaga fadli bateen xuralcayntu haweenka mu'minaadku xuralcaynta waxay kaga fadli bateen soonka ay soomayaan salaadda ay tukanayaan iyo raggooga ay adeecayaan fadligiinna iyo masabkiinna diinta islaamku meel sarayni dhigtay nin baa nebiga u yimid oo yidhi dadkayga qaraabadayda ayaa igu xaq mutaystay hor iyo horraanba wuxuu nebigu yidhi hooyadaa haddana hooyadaa haddana hooyadaa haddana aabbahaa buu rasuulku yidhi dhegayso gabadhayda muslimadday diinta islaamku hoos kuumay dhigin xaqaagiina may qarine bal diinta islaamku xaqaagii kor bay u qaadday kor sayidina cabdullaahi binu cumar buu nin u yimiday lacalla hada alxadiis waa marfuuc weeyaan cabdullaahi binu cumar buu u yimiday nin markaasuu yidhi yaa ibnu cumar hooyaday ii dhashay ayaan degtayda xashka ku keenay intaasoo mayl ayaan degta ku soo qaaday waan dawaafsiiyey carafa ayaan geeye xaqeegii ma guday mise ma gudin wuxuu ku yidhi xaqeygii kugu lahaydood gudda iska daaye maalinkii ay yaraantaadae ku xambaarsanayd ee marada qaydka kugu xambaarsanayd ee qaydku ka dabacay ee u malaysay inaad ka siibatay maalinkaa keliya naxdintii ay naxdayba abaalkaygii maad soo celin buu ka yidhi xaqiinna waad leedihiin xaqiinna diinta islaamku meel bay ku tiirisee adiguna isku xadgudbin walaasheeda muslimadday dhaqan baad leedahay diin baad leedahay islaam baad tahay mu'minad baad tahay waxaad ku danyataa dadkii haweenkii ilaahay adduunyadan uu raalliga kaga noqday waddadoodii maryan binta cimraan ku dayo aasiya bintu masaaxim ku dayo faaduma binta muxamed ku dayo khadiija bintu khuwaylad ku dayo dadkaasaa adduunkan iyo aakhira ku liibaanay sida
waxa uu nebigu yidhi sal alla alay wasalam haweenka ilaahay afar buu ka doortay buu nebigu yidhi afartaasna waa maxay waa maryan waa nebi ciise hooyadii waa aasiya weeyaan waa aasiya guriga